بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أمد الصومالية ميل كستي جوجان aad baan ii wada salaamayaa waa walaashiin Faaiisa Cabdi Cabdi Cusmaan. waxaan rabaa inaan halkan hambali ugu diro madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. waxaan leeyahay mudane madaxweyne hambaliyo waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay madaxweynaha kula garab galaan shaqada culus ee maanta uu qaaday oo asagana uu rabo hadduu eebi idmo inuu uu xajiyo oo adkeeyo dalkanagana uu si fiican oo u dhiso because anaga waxa soo marnay 27 sano oo dhibaato ah 27 sano waxa ku soo jirnay burbur rafaad qaxooti iyo dadkan oo dhamaado waxaan rajaynayaa hadduu alle idmo inuu noqdo 27 sano ka hor furihii dhumay inuu maanta noo soo helay noonu hogaamin doono hadduu alle idmo sida hore u ogtihiin aniga dalkan Turkiga waxaan u joogaa xaalad caafimaad oo ku saabsan nafsad ahaanteyda runtii isbitaalka alxamdulillah waa ka soo baxay waxaa jirto dhibaato fara badan oo aniga nafsad ahaan i haysato ay kamid tahay ugu horeyntii inaan u baahanahay dhakhtar jarmarka ah inaan u baahanahay xaalad caafimaad waxaa jirta ballanqaadiyo ii sameysay dowladdeedii horeeto oo hogaaminaya mudane xasan sheekh maxamuud hase ahaatee may suurtagelin waxaan rabaa qabyadii oo madaxweynihii hore iiga tagay oo ii ballan qaaday hadduu alle idmo inuu ii dhammaystiri doono madaxweynaheena cusub ee federaaliga ah walaalayaal hore waa u aragteen Faaiisa in badan ayadoo xanuunsan isbitaal jiifto xaalad xun oo adag ku jirto alxamdulillah maanta waa fiicanahay xanuun oo maanta ikarkarinay imahayo waxa samahad leh Ali subhanahu wa ta'ala ee caafimaadkayga inta soo gaarsiiyay inta dhimanne insha Allah way imaan doontaa waxaan rabaa inaan u mahad celiyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaalin fiican iiga qaatay xaaladeeda caafimaad waliba gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Yuusuf Madaali oo asagana kaalin fiican ka qaatay ummadda Soomaaliyeed oo garabka isiisanay ayadana aad baan ugu mahad celinayaa waxaan rabaa inaan halkan baaq ugu diro dhammaan madaxda dowladda golaha baarlamaanka ha ahaato insha Allah tacaala waxaan ahay walaashiina oo dhibaataysan waxaan rabaa maanta inay idinka ii damqataan waxaan rabaa qabyadii shalay la iiga tagay inay ii dhamaystirtaan waxaan rabaa inaad maanta xaalad caafimaad iila dabiibtaan waxaa kamid ah maadaama aan ahay qof dhalinyaro ah aanan maanta awood u lahayn inaan socdo awood u lahayn inaan suuliga galo awood u lahayn inaan keligay fadhiisto sida hadda arkaysaan dhabarka waa ka taageysanahay mana fadhiisan karo keligay in la soo fadhiisiyo mooyaane waa dareemi kartaa qof dhalinyaro ah xanuunka uu ku nool yahay markuu marxalad saan oo kaleeta ah uu ku jiro runtii adiga xataa xildhibaan adiga ka soo qabanaya maanta hada caafimaadka madaxa uu ka xanuuno